qodobka afraad ee haddii aad ganacsi bilaabaysid ama fikrada aad bilaabaysid ama aad service samaynaysid inaad samaysa lagaa rabo waxa weeyaan inaad cilmi baaris samaysid research wax la dhaho waxaa laga yaabaa maanta haddii aad raadisid onlineka sidee lacag looga sameeyaa ama sidee ganacsi ku bilaabi karaa boqolaal video ayaa kuu soo baxay qof walba wuxuu ku leeyahay sidan ayaad ku bilaabi kartaa sidan ayaad ku bilaabi kartaa waxaa dhacay markaa inaad go'aan qaadan kari weysid oo aad tidhaahdid ma xalwaan raacaa ma caliyaan raacaa ma aaminaan raacaa ma enzel baan raacaa yaan raacaa waad ku wareereysaa laakiin markaad adiga for your own research samayso adiga fikradahaada iyo cilmi baaris gooni aad samaysid ee businessyada ganacsiga hadda xilliga lagu jiro isbebedelada socda ganacsiyada ugu fiican google ka baar meelo badan ka baar dadka la tasho consultant samee waqti geli oo aad dhinac kasta kasoo eegaysid kan haddaan bilaabo kan muxuu yahay kan haddaan bilaabo kan muxuu yahay tusaalo kale haddii aad rabtid inaad bilowdid taksiile aad noqotid waa ganacsiga yararka ama businessyada la yararka ee la yiraahdo small businesska ama self employee ayaa haddaad rabtid inaad bilowdid waa inaad baaritaan soo samayso meeshaad ka bilaabayso taxi lagu shaqeeyo sidayba u taalaa goormaad shaqayn kartaa waqtigee ayaad heli kartaa ma yahay horta taxi inaad wadid waxaad adiga jeceshahay ma yahay wax aad ka hesho ma yahay waxaad neceb tahay waa inaad baaritaan badan soo samaysid kadib waxaa kuu soo baxaayo probability wax la yidhaahdo ee u dhow waxa aad adiga rabtid ama runta ah xaqiiqda inkastoo aad xaqiiqda helaynin ilaa waxaanay aad falgal la samaysid oo aad toos u bilowdid laakiin wax xaqiiqda u dhow ayaad helaysaa so si aad u heshid markaa ka dambe oo xaqiiqda wax u dhow adiga aad heshid deetana waxaad isticmaashaa adiga talentiga aad lahayd hal abuurkaadii iyo kartidii aad ku bilaabi lahayd waa inaad markaasi aad ka dhigataa qodobka afaraad qodobka shanaad intaad bilaabeen ka hor laba arrimoodba qodobkaani wuu isla qaadanayaan arrinta koowaad waxa weeyaan dhaqaalihii aad ku bilaabi lahayd ma awoodi karta haddaad awoodi karin pound ma raadsan kartaa cid kaa caawiso haddaad aad heli karin cid kaa caawiso ma heli kartaa cid serviceka adiga aad taqaano aad kaga bedelato si ay kuu caawiyaan waxaan ka wadaa serviceka aad kaga bedelato tusaalo kale waxaad haysataa ama aad leedahay khibrad ama aad leedahay xirfad kuu ah video editing ayaa xirfad kuu ah waxaa rabtaa inaad youtube bilowdid so youtubeka inaad bilowdid programyaa kaaga xiran programyadaas qof kula xaliya ayaad rabtaa laakiin adiga editingka ha taqaanaa kuwa kale ma garanayso waxaad raadinaysaa qof adiga editing aad u samaysid ee isaga editing u baahan deetana adiga serviceka kale aad u samaysid qof adiga howlihiisa aad u fududaysid adna howlahaada kuu fududay ama qof fan ama lacagtii kugu tabarucsi aad u bilowda businesskii hadhow aad gadaal oga ehaysid adiga qodobka shanaad waa inaad dhaqaalihii aad ku bilaabi lahayd iyo wixii kaa geli lahaa oo aad u baahnayd ama qalab ha noqdo ama agab ha noqdo inaad heli kartid ama aad ku bedelan kartid waxyaalaha serviceka ah ee adiga aad taqaano isla qodobkaani dhinac kale waxaa saara inaad qorshe u samaysatid qorshe waa inaad plan leedahay plankaada muxuu yahay kow hadaf inaad dhigatid oo tirahdid okay youtube waan bilaabayaa youtubekeyga zero aan ka bilaaba maanta ma haysto hal qof oo subscribe ma haysto zero ayaan ka bilaabaya youtubekeyga inaan youtube sameeyo waa jeclahay barnaamijka aan la imaanayo ee bulshada uga soo bandhigayno waa barnaamij aan ku fiicanahay ee aan jeclahay editingkii ma aqaani laakiin barnaamij fiican ayaan aqaanaa aan soo bandhigo cid editingkiiga caawisa ayaa raadsanaya oo ii edit garayso maadaama aan editor aan aqoonin laakiin maxaan haystaa tools waxaan haystaa telefoonka aan wax ku duubayo waa haystaa okay telefoonka dhexdiisa ab ayaa ku jiro lagu edit gareey waa soo dejisanaya waa ku edit garaysanaya meel hoosaa laga bilaabaa qasamaa inaad marka ugu horeysa aad soo gelaysa aad haysatid maxay kaamera iyo qalab fara badan inaad haysato ma baahan so halkaa hoosaad ka bilaabaysa so taasi marka aad samaynaysa waxa way qorshe ayaad dejinaysaa tusaalo kale isbuuci meeqaa video ayaan soo gelinaya waa inaad u qorshaysaa hal video isbuucii ama 2 video ogow mar kasto ee aad youtube wax soo gelinayso waa inaad si daily ah wax u soo gelin kartid youtube-ka waxa ugu faa'iido badan qofka everyday wax soo geliya ee ugu faa'iido badan waxaa ku xiga qofka isbuuc kasto dhowr xaba soo geliya qofka isbuuci hal soo geliya waa qofka ugu followerska yar markaad aragtid youtube-ka tusaalo kale so waxaad qorsheynaysaa isbuuci 4 mar ma soo gelin kartaa 3 mar ma soo gelin kartaa 2 mar ma soo gelin kartaa waqtiga aad haysatay intuu la egyahay okay waa shaqaysaa 8 saacadood shaqaysaa
in qalbiga markaad imaato reerkii caruurtii howlihi kugu furan noloshii ma samayn kartid so isbuucii meeqa maalmood ayaad wax samayn kartaa haddaad samayn karin weekendiga ma samayn kartaa tusaalo kale weekendiga cashirada duubo dhigo jarjaro maalin kasta markaa inta aad soo gelin kartid cashirka kuu diyaarsan marka aad shaqo leedaho kale xilliga break oo kale kusoo tuur ee soo geli siyaabaha ugu fudud oo la sameeyo waa aniga xataa markaan shaqaynaya aan sameeyo qorshahaas wuxuu kaa caawinayaa inuu ku tuso hadafka ah hal sano waa 12 bilood inteed gaari kartaa ganacsigaada intuu gaari karaa qorshahaasaa kaa caawinaya marka aad maalin kasta qorshaysid daily inaad soo gelisid hal video sanadkii meeqaad soo gelin kartaa almost sanadkii wuxuu ka kooban yahay 360 maalmood imisa ma inta 360kaas maalmood ee aad video soo gelin kartaa haddii youtube-kayga aad aragtaan wuxuu kor u dhaafay 1000 video ayuu kor u dhaafay youtube-kayga goormaan bilaabay inaan video soo geliyo 2018kii aan bilaabay 2018 19 20 21 22 23 24 intaasoo sanado ayaan soo gelinahay weli 1000 video ayaan maraya markaa sidaa u qorshaysatid ee aad soo gelisid inta ugu talagashay sanadkii inta video ugu talagashay qorshahaasi aad samaysay ama business kaleba ha noqdo waxaa kuu fududaanayo qorshahaasi markaad si joogto ah ee daily aad u samaysid inaad hadafkaada u dhawaatid haddii aad gaarin haddii kalena inaad gaartid sidaa darteed waa muhiim qodobka ugu dambeeya inaad qorsho fiican ee daily task la dhaha ee maalin kasta aad samaynaysa inaad dejisataa businesskaada sida halka aad rabto halka aad doonayso ee adeegsanaysa aad u gaartid taasi waa number 1 so haddaan ku noqdo mar kale qodobada maanta aan idinla wadaagay waxa weeye haddii ganacsi aad bilaabaysid number 1 maxaad jeceshahay waxaanay fikirka aad qaadanaysid ma yahay fikir aad jeceshahay yes dhinaca kale waxaad ka fiirisaa ma yahay waxaad adiga ku fiicanta markaad ogaatid inaad jeceshahay ee hoos aad ka xariiqdid kadibna waxaad fiirinaysaa maxaad necebtahay ma yahay midaad neceb tahay mise midaad jecleen waxyaalaha aad neceb tahay markaad ogaatid in hadhow markay ka hor imaadaan aad ka sii maxay ahayd baaraan degtid ayaa imaanayso waqti ma u heli kartaa ee kaa go'an sidoo kale research inaad samaysid baaritaan fara badan inaad samaysid baaritaanka kadib in aad qorshe samaysatid qorshahaadii aad qaadatid ama aad heshid qofku la taliya aad heshid iyo qodobka ugu dambeeya oo ah inaad u samaysid qorshe inaad u samaysid iyo dhaqaalaha aad ku bilaabi lahayd ganacsigaada in sidoo kale isagana uu ku meelaysan yahay intaa markaa samaysid qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan wixii aad bilowday inaad joogtaysid oo ah 2 arrimood qodobka ugu dambeeya 2 arrimood waa isagana in lagaa rabaa koo waxaa lagaa rabaa inaad yeelatid aad noqotid qof ay ka go'an tahay waxaani go'aan adag waa inaad qaato ee kaa go'an tahay xaalad kasta ee kusoo wajahdo caqabad kasta ka hor timaado hadday waxaan kaa go'an yihiin kuma celin karta caqabadaasi waad jiiraysaa so waa inay kaa go'an tahay iyo isla qodobkaasi dhinac kale waxaa lagaa rabaa inaad leedahay samir iyo dulqaad haddaadan samir lahayn ganacsi ma wadi kartid waa in xaalad kasta samir aad yeelato tusaaloo kale markaan youtube kasoo bilaabahay dad igu xirnaa ma jirin 0 subscribe ayaan sanadadii ugu horreeyay oo dhan 100 qof ma aan dhaafin 200 qof 100 qof 300 qof ma aan dhaafin maanta oo sanado badan ay kasoo wareegeen weli youtube-kayga haddaa fiirisaan 18,000 oo qof ayaa subscribe ah waxyaalaha ku jiro iyo cilmiga ku jirana uma dhigmo 18kaasi qof marka aan soo geliyay 1000 video imisa qof ayaa la rabay inay ku xirnaato ugu yaraan 1 milyan oo qof inay ku xirnaato la rabay janaalkayga markuu gaaray 1000 video ugu yaraan 1 milyan oo qof inay subscribe u hartaa la rabay laakiin xitaa 20,000 ma gaarin waa 18,000 weli se maxaan sameeyaa passionta weli waxaan ahay qof u dulqaadanaya ee waxaasi saameyn aysan ku yeelanaynin danaheeda wadato ku socota hadaf ayaan leeyahay hadafyada aan dhigta ayaan ku socdaa so waxay hor istaagi kara malaha caqabad kasta waan jiirayaa waqti kasta igu qaadatana waan soconaya sidoo kale ayaa lagaa rabaa adigana inaad noqotid qof diyaarsan okay ee diyaar u ah xaalad kasta ay soo wajahda